inan iyo inan oranaya 6 sanadood baan wada sheekaysanay maxaa la qabanayay ilaahay baa idinku dhaarshay maxaad qabanayseen baa ilaahay ka baqdaan maxaa la qabanayay waa inuu xoolo leeyahay nin faqiir ah guursanina ina yar gidaar la istaagina dariiq la marina inaya gidaar la istaagina meel ha ula bixina waxaad ku ornaysaa shil baan soo galay maanta alla xaaji aad wax ma qabtaa shil buu soo galay maanta shil baa soo galay adiga haddaad nabad qabti waxa ma laha gaari waynu heli karnaa ilaahay baa bixiya adigu ma nabad qabtaa wax ma noqotay wuxuu dareemaya inaad ihtimaamka siinaysa isaga waxaa laga yaabaa gaariga adigaa lahaa oo ma gaarigii dhamaymika soo qaataad soo jebisay ilaahay subxaana watacaala zawjkeedii oo xaawana laga abuuray rag badan iyo dumar badanna inay dhaleen oo inagu aynu ka mid nahay subxaan allah kayfa takhtaaru lbintu zawj الصالح والمتزوجة كيف تكون زوجة صالحة هذا هو محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى سبحان الله تكوبات وحويان الخلق الدين قبل الخلق dadku had iyo jeer waxay soo horeysiyaan diinta soo horeysiyaan anigu waxaan soo horeysiinayaa akhlaaqda diinta waxa weeyaan qofka isaga diinta waxa weeyaan isaga qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala farda qof walba wuxuu imanayaa maalinta qiyaamaha isagoo kaliya uu imanayaa kolka subxaan allah al-akhlaaq al-khuluq ayaa horeeya oo rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ida ataakum man tardawna khuluquhu wa diinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam yiri haddii idin yimaado nin aad akhlaaqdiisa iyo diintiisa raali ka tihiin u guuriya haddaad u guurin weydaana qurun iyo fasaad oo dheer oo aadin ka gooyon karin iyo dhibaato weyn baa idinku dhici doonta dadku hadday dhalinyartu ay guursan waayaan waxaa ku dhacaya dhibaatooyin aad u waaweyn ayaa ku dhacaya kan igar comfortable me murtaax me ina meel dhiga weeyaan saas u dhigo kale بلي قبل ما أظن لك إذمي ويا أن سبحان الله فساد عريض أيا كذا لنا يا قبل وحي كدورن كرتا الأخلاق نكوا دون خلق لهاي وحويا وحبك ما تشرا وحيس أخلاق دون لهاي دينتا دو شط صلاة تكذو قرآن كحافظيه شيخ وينه أو قركي سؤال كأشوجي هاي إسقى وطالع رتب الدون إنسان إسقى وطالع isaga u taala haduu gar weyn leeyahay salaadooda diinta yaqaano laakiin akhlaaq baa loo baahan yahay haduuna akhlaaq lahayn uu gabadha uu kula dhaqmo diintiisa al-khuluq rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq rasuulkeeni diinteena khuluq rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam Aisha radhiyallahu anha waxay ku tiri waxa la weydiiyay saxaabada u yimid kolkaasay ku yiraahdeen kayfa kaana khuluquhu أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلايه كان خلقه القرآن أخلاق ليس قرآن كأيه قرآن كنت بفيريه كتير أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن يا وكان وحويان توجه الرئيس وحويان الخلق بارك الله فيكم أن تتكلمنا وحويان الدين دينتي وحويان دون أنك صلاتكم ونا صاحب الدين هاي ومسلمون هاي de waxa weeyaan guurkaaga waxba kama jiraan waa inuu noqdaa saaxiib diin waa inuu noqdaa waa labaad saddexaad waa inuu xoolo leeyahay nin faqiir ah guursanina nin faqiir nin ha guursanina ta saddexaad waxa weeyaan maal waa inuu xoolo leeyahay دليل بانو هيا ورسول كان صلى الله عليه وسلم وشاقي دليل بان هيا
oo saxiix aan idin hayaa ha guursanina nin faqiira rasuulkeeni sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi yaa macshar ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata raggii buu la hadlayaa haddaad awoodi kartaan buu yidhi ood awood leedihiin guursada haddaad awoodi kari weydin miyaa facalaykum bisawm waa inaad soontaan buu rasuulku sal allahu alay wasalam haddaad awoodi kari weydaan waa inaad soontaan ma soomaan waa maya soo ma ah maxay sameeyaan dee jaad baa loo wada fadhiyaa oo la qayilaya waaya rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxaa u timid faaduma binti qays si fiican dhagiina u fura habla yahow weliba hablaha yare guurdoonkaa la hadlaya iyo intuu guurka ka xumaaday oo mid xun oo saqajaana uu helay ayaan la hadlaya laa yukrimu almar'ata ila alkariim walaa yuhiinu almar'ata ila alla'iim laa yukrimu almar'ata ila alkariim walaa yuhiinu almar'ata ila alla'iim waxaa karaameeya gabadha nin kariima waxaa gabadha hoos u dhiga nin la'iima waa la'iim faaduma binti qays baa rasuulka sal allahu alayh wasalam u tirmid kolkaasay u bandhigtay tiri niman baa i doonay rasuul allow niman baa i raba 3 nin baa i raba oo iisoo geed fadhiista bay tiri hablaha halkan waxaan uga sheegayaa hablaha waxaan halkan idinka fariintana idin gudbinayaa ina yar gidaar hala istaagina dariiq hala marina inaya gidaar hala istaagina meel ha ula bixina waxaad ku odhanaysaa hooyaday waa tan aabbayna waa kan ahla wasahla de soo gal hadday run ka tahay way kuu iman ood raalli iskaga tihiin waa loo baahan yahay mid kale aan idinku darayaa waxaan la yaabaa inan iyo inan odhanaya 6 sannadood baan wada sheekaysanay maxaa la qabanayay ilaahay baa idinku dhaarshay maxaad qabanayseen baa ilaahay ka maqlaan maxaa la qabanayay 6 sannadood sideed inan uga sheekaysataa 5 sannadood oo muxuu kuwa kasaa lagu faanaya lale 5 sannadood aan wada sheekaysanayno kasay hooyadii aabiina qoslayaan in lam tastaxyi fasnac maa shiit buu rasuulku sal allahu alayh wasalam haddaadan xishoonayn waxaad doontid samee haadaa min xayaagii oo naga tegay weeyaan maxaa la isku sheegaya 5 sannadood waayahay subxaan allah ataytu ila nabiy bay tiri sal allahu alayh wasalam waxay tiri faqultu abi jahm iyo mucaawiya khatabanii wa usaama bin zayd 3daasaa yimid rasuul allah 3daa nin maxaa ka yeelaa bal ii kala sheeg rasuul allah waa rasuulka ilaahay bal gabadha caqliga badan la eega ee rasuulka u timida u kala sheegaysa gidaar lama istaagin 5 sannadood lama sheekaysan waxay ku tiri ii kala sheekeen guursadaabay ku tiri wuxuu yidhi faama almucaawiya hadda dhegiina fura waa nebi maxamed maaha aniga waxaan samaystay nebi maxamed faama almucaawiya fasacluuk xoola male buhi waa sacluuk waa midaan waxba haysan kaa guursani buu ku yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi anigu maan odhan fasacluuk waa maxay waa midaan waxba haysan dee oo meelaha iska meeraysto oo gacmaha lalaadiyo waa sacluuk bay ku tiri laa maala lah buu yidhi wa ama abu jahm buu yidhi falaa yadacu alcasa can caatiqihi usha dhulka ma dhigo waa daraabu nisaa ragguu dilaa wuxuu dilaa dumarkuu laayaa daraabu nisaa weeyaan laa yadacu alcasa can caatiqihi had iyo jeer ushu kor waystaa waa nin daraaba oo dumarka dila kaasna kugulama talinayuu yidhi wuxuu yidhi wa ama usaama guursa buu ku yidhi wax sheekadasa la sheego kuwa kale xoogaa malaa niyadda ku hayso way yaro diiday hooyada
iyo aabbaha waxay kuu dooreen iyagaa kaa og hadiidi gabadh hooyada diiday aabbaha diiday ma ogolow khayr baa ku jira khayr baa kugu jira waalidkaa wuxuu kuu dooro khayr baa kugu jira markaa iyo dee cidda culimada oo kale u tegi kartaan oran kartaa inan wadaad kale yimid bal wadaadkan iiga sheekee wadaado madaarista oo kale aad wada dhigataan waa u geyn kartaa macallinkaagaad u geyn kartaa macallimiintiina u geyn kartaa oran kartaa bal ninkan iiga waran wuu ku siinaya hadduu nin wanaagsan warbixin fiican buu ku siinayaa raggeena badankana hablaaba lugooyaan waayahay rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waxaa mushkilada kale jirta waxa weeyaan innaga waa inaynu ishagaajinaa inanka fiicani haddaadan adigu inan fiican soo saarin inan fiican miyuu noqonaya innaga ay nagu soo noqonaysaa arrinkaas waa inaan inanka la tarbiyadeeyaa oo hooyo kastana inankay u tarbiyadaysaa siduu gabadh u hanan lahaa siduu wax u samayn lahaa siduu wax u qaban lahaa waa inay ku dadaashaa kolkaa waxa weeyaan haddii hooyadii khariban tahay ka warrama culimo haddii hooyadii khariban tahay wiilkaasi wiil fiican ma noqonaya waa inaa idinku hagaagtaan inagu almar'atu idaa salaxa almujtamac gabadho hadday hagaagto mujtamac uu hagaag gabadho hadday xumaato mujtamac uu xumaanaya waxaa keenay jahliga aqoon la-aanta waxyaabo badan iska dhayalsayga oo dadka qaarkood waxay iska dhayalsadaan rasuulkeeni sala allahu alayhi wasalam xadiiskana si fiican u dhagaysta xadiiska wuu ka duwan yahay tusaalaan u sheegaya hooyooyinkaan anigu iminka hargeysa aan ku arkay oona ku arki jiray rasuulkeeni sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulkeeni sala allahu alayhi wasalam iimaanku waxa bidca wa situuna shubcan aw 70 shubcan aw wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa situuna shubcan iimaanku wuxuu kala kacay ilaa 76 laamood ayuu leeyahay laamood buu leeyahay faclaha wuxuu yidhi laa ilaha illa allah ka ugu sarreeya waa laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadatu ladaa can ariiq ta ugu hoosaysana waa imaadatu ladaa can ariiq maalmihin dhawaydu roobku da-ye waxaan ku arkay subxaan allah waxaan arkay hooyooyin roobkii oo da-aya gaarigaa ku jiray xagga dambaan saarnaa waxaan arkay hooyooyin qashinkoodii biyaha raacinaya waa maalmihin dhaw roobku da-ye wallahi inaan meesha qashinkay raacinayeen hooyada inankay hoosteeda jooga ma ina tarbiyadaysan ba hooyadii buu arkaya noocaa u eg isagana qashin baad sheegtay madaafiic buu kuu dhigaya lina hooyadii buu arkaya ma aragta kolkaa waxa weya inagu haddaynu hagaagno aynu noqono dad wanaagsan oo fiican u wanaagsanaanaya markaa waa inay inagu iswanaajinaa ina wanaagsanaa doonaysaa soo maaha wanaaji inamada wanaaji aada hoosta ku haysatid hooyo kasta inamadeeda hagaajiso adigana markaad guursatid inanka ilaahay kuga arsaaqi doono hagaaji deetana waxa weeyaan arrajulu saalix uu noqonaya laakiin adu haddaad khariban tahay wax khariban baa ayaa soo baxaya kolka mujtamaca waxaa islaaxa weyn ee samayn kara waa annisaa waa haweenka innagaa samayn karna wallaahi raggeena waa mudiiciin raggeenu maaha rag adag ma adka laakiin inaga inaan islaaxino inaga dib intaynu u wada fadhiisano xashaashaqno maxay naga siinaano aynu istootoosino ishagaajino inamadeenna way hagaagayaan insha allahu tacaala taasi waa taa waxaa kaloo rasuulkeeni sala allahu alayhi wasalam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi alihtimaamu alusra inuu inankaasi uu ihtimaam weyn siinayo faamliga oo muxuu ku siinayaa suurati taha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yihi aayadda 120 wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nasaluku risqa naxnu narzuquk walcaaqibatu litaqwa aayaddaasi maxay tahay waa inuu inankaasi noqdaa inan saalixa oo wanaag ku fara oo khayr ku fara oo had iyo jeer oo dhanka oo dhan kaale gidaarkan wada istaagne 5 sanadood wada sheekaysanne kaas maaha waxa weeyaan waa mid ku faraya salaada iyo digriga iyo wanaaga ku faraya kaasaa loo baahay waa inaad kaa doorataa inanku hadduu marba waxaa sheekada halka uu kuu mariyo albaabkiisa xidh kolkaa waa taqwaday ka mid tahay subxaan allah waxaan kaloo ku darayaa waxaan idinku darayaa sifaatu azawj lmithaali sifaatu zawj lmithaali waxaa ka mid a
المحب لذاته ويعتمد عليها إنه يهي نقف نفتيسا كو كلصون أو إساق إسكو كلصون إساق نفتيسا جعل نفتيسو جعل يهي ولا إسكو كلصوي نفتيسو كلصوي وكيكا سكا نفتيسا جعل كنفتيسا جعل وحويا كحمانو دان إسكا إلاليا حمانتو وامحي نين قيلا يادد قرستو سيغاري يتشاد عنايا وادو دوران دروغان داكا وجرو كاسي ما نفتيسا مو جعل يهي نفتيسا مو جعل يهي نفتيسا ما جعلا حقيقة بركة لقا عدلو نيكا نوعاسي نفتيسا ما جعلا كلها بركة أدو إمك الرعدي إن النوعاسا أو قيليا أو هالك سوق هذا يوم بالك دادير يكون حروانا يا رجال ومصيبة وحويان وحيابها إن هايستم مشاكل كوين إن هايستم نسكين صعبينه ونسكين ترينا ونسديسيرينا إلى زيسينا ما وأبها وأديرك وأبتيجا وكيكو قوي وين كيان الشيء كل واحد حصل من يمي سمع رجال موحكلا ما كل واحد نفتي سادو جعل يقف نفتي سادو جعل هاي ما عنايو ما خيلايو شادكا اسكو مرقاسي مايو نفتي سو وينو جعل هذا تاسد كو غرانيسا وينو صدق وينو يهي رشاقه وينو يهي يا بيننا كسو خيرغلي رنا كدق ها ديارadaha kiciya marayka karimka ka yimid wax yar waa iim ka imanaya halaysiga haduu qofku been sheegaba ka fogow waa inuu sheegay yahay hadaa doonaysa rajul mithaali nin fiican haduu been sheego way u dhamaatay mahmahay hore Soomaalidu sheegi jireen waxba weyna lu gooyeen uu mooy been ku soo inabadina waxa say dhagtii ku riteeno been uu sheegay runta inuu sheego weeyaan xaqiiqda inuu sheego weeyaan runta inuu sheego weeyaan waxaad arkaysaa rag waaweyn oo xoolo Ilaahay siiyay oo ru sheegay oo gabadhna waa la og yahay saddexna hoosta ku haysta هذا عمر كل توبة عروق كسر استكتاجيا إلى هبل بارنا الله أي بس كأرنايا يعني ومصيبين كتير وصادق معها رشاق معها إلهي ما هو بنيه مثنى وثلاثة ورباع إلهي ما كون بنيه محاك بقريسا محاك بقريسا عروته وكلا قرينيسا محا عروته وكلا قرينيسا وبقريسا وأنا ورث الشيقة وأنا ورث كل أنت وأنا وشيقة ولا عروت الولالاتين كمان أنا قبا نكا رجع ويان تأسنواتا الاستقلالية وإنه قفكو استقلال وياي وإنه ملح بناية ما حيك ملح بناية هو يدي يدي كيسي وحصل كمان عادية هو يدي يكون بيلنا سعرتا أو مهركي لشكو صورنا يقولي قالبتي سي وحصل وهذا يقول وقت إنه يهي دبدي سعرر المريض واتكون كشيء واحد كون كشيء وحصلنا ما تكون كشيء دبدي سيسمع عرر المريض فاملي مصورنا ودي قلا صار جيسا فدي قالوا مصور جيا كردي ولا جاب حينيا وحما هيستو ده ترى حتى ودمدو كلا عضيا كاسي وحكم ما ترى because كم صار تبعين كم بيتكلم عندنا لا يجلاليا هذا رتو كلام يجلاليا وحاصل هو يمكن أيوة حاسمين إلهي كبقى نيكو شقيست وإنه يحقق مستقل وياي وإنه مركا وسووا كفين كرا عروتي وحول بو كفين كرا وإنه يهي تودن بيساء الرجل المثالي وحوي وإنه عافمات قبا هكله قينا يمكن حياة وذن بشرة هكله قينا عافمات كينا ترايس صوب بعده إنا كرايس صوب بعده تاني يا علم هذا صوب بعده هذا وكمش اللي نسلين بقصة وقتي دكتور كاتقو تاني يا علم نكينا كرات برسنا يصوب بعد دكتورو هذه كنا على كبارو هلا إسبارو زمن خطر إنه كشرنا أو آدو هالس بدن هجورسن إني نادن إسبرين وأنا دلنا ترى يهودي بنا هاي حالنا بدن بالله صعدا هجورسنين نينان دكتور كسب بارين تاسا كجب حي قبلني محل جرب هذا بلا قبي قبلني اللي قبي محل جرب حاجي أكبر كوساكرو بيها كاوسي ديري اللغة وقلي يا مرحبا
يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أول بدك ها مقعي سويان يا حبيبي الغالي ده يا حبيبي الغالي يا قرة عيني هذا الوناك صدها رقينا هذا الوناك صدها سفي عن ولا هضلا رالي قلية تاسا أقومي يمسد وقبضنا لقبه رسول كان صلى الله عليه وسلم وحيري الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة ما هتم يا رئيسة معها ورئيسة معها أصحاب تبادر معها من بسوق ليس من بسيب حيسة من بس وضوخي نام محي واحد نام اللي كان ده ها كل حسين صراحة عقله صاحبة ضيدي قاري هايدي صاحبة ده كله كوينيسا الباب كحلو نيكا قدو كل هذا إنه تاس مرة حاضر إنه تبدو السماء حاضر تقول شيء شايفتها قرينا إسكت دوبينينا قبلها لقب قريها دوبينينا ابتعاد عن الشجار هذا يشير دجال كنا سكيل على الإنسان أو هذا يشير دجالنتان مثلا وحبان وديرتي وحبان وديرتي كوكينين كومو كينين وحي أدو ديرتي كومو كينين وين ترى وحبان ماله مثلا وحبان وديرتي محوها وحبان وديرتي سكر ما وديرتي ملح بو كوكينا وحبان ماله حاج ها وإمك هذا نوكيني دو تبى إمك لكن هذا دجال كوركي تتكور وحيانا إسكت سبلية أو إسكت فضول كل هذا يشير شجار كان إسكيل عليه وحيابه يقول وكنت ما يكمتاي إن النقطة إيجابية أو لابقة أو دبرية أو مشكلة ده واحد وناكسن كديجا مشكلة ده واحد وناكسن كديجا ها شلبان صان قلي ما أنت الله حاجة أبو واحد وقبتها ها شلبو صان قلي ما شلبان صان قلو هذه قاعدة نبض قبتي وحملها قاعد وين هني كرنا إلهي باب بحية أظن من نبض قبتها وحملنا قبتي محون درامي أنا اهتمام كسيني سيسقم فهلا يا بقاري قاعد قالها أو بقاري كده ما يبغى ساق أتى تسوي شيء معها إلى ترى ولا ترى هذه قاعدة ما قبتي وينه هلينا إن شاء الله تعالى إن كمان دو إلى لسه إن أركتي هذا مظهر كذا إن إلى لسه في البيوت هذه يشار مركين بحنين وسنا أين مكان بين مرسنا وحين كلا سوينا رموش وحلا يدا بارد انت لالك نو خيرتا اسغا وخيرو بارد كاي تلالك زوجكاغا او غشو اي تل لالك بارد عليه odaygaga u xidho gurigaaga ku xidho meel kale ku xidhanina meel kale isku qurxinina waxa isku qurxisaan guriina isku qurxiya wallahi ragaas rag fiican ninka ka ugu xun ni wanaagsan ku noqonayo markuu ku arkaan jir gurigiina isku hagaajinayso dabadaada isku hagaajin soo wada iibsada waxa soo dhan guriga ku xidha rumuushow maxayow meekaabka waxa la soo wada mariyo guriga ku marsada banaanka ku bixina gabadhu inay madaarkeeda ilaaliso waa muhiim tarbiyatul atfal tarbiyadu waa laba waa saan markii hore idin sheegay cunaad ku gortaan caruurta ka daaya caruurta rabeeya tarbiyadeeya waxa tiraahdaa ilmaha waa in laga dhaadhacsiiya cid ka sareyso hooyo ma jirto adiga ugu wanaagsan kan samee ya magacyo u bixiya injineero doctoro maxayo ila hadal wanaagsan ku dhaah deetana qofkii waxa laga yaabaa ilmahaasi inuu markaa tarbiyada ku tarbiyade qisas al-anbiya uga sheekay qisas saxaaba uga sheekay inta saxaabiyaadka uga sheekay Aisha radhiyallahu anha uga sheekay Asma binti Abi Bakr Khadija binti Khuwaylid saxaabiyaadka jaliilaadka uga sheekay deetan waxa tiraahdaa kuwaas oo kale hooyo kula doonaya wallahi inantaada yar hadaad hadii jeersa ku tiraadin kaasa kula raba way noqonaysaa Aisha radhiyallahu anha halka taagan oo Allah runtii qofka ilmaha yar ha yaraysanina wuu rikoor garaynaya ya ina ka yar markuu aabi halkan isagoo qaylayo marqaasano sigaar cabaya halkan isagoo fariisanaya sigaarkii iska dhigaya waa ilmaha waa rikoor hadhowna berito lagu sameynaya jaadkii aabi la soo fariisanaya adigana saas ilaa hadaad meeraysato afarta kooraar geysa marta tahay inantaada meeraysatay noqonaysaa maxaa la yiri Soomaali waxay tiraa inta maxay barataa maxay
هذه تبيها وفس كي برتا مياه ما هذه تي هروك تطرح هذه سي برتا كل كاسدا تهاي ما إن هذا النقطة دعاء إذا هذه يجر صلوات كنت عيسى كلمة حنا إسكدايا ريار كيسوا هذا الكين واقلب سيء نعرفش أنا ويدكم بدنتين هذا الكين واقلب سيء إسكيل عليه هذا الله يهديك خير هلا الماجا وحدادية هو أظن محمد نقطين نقص يا مسحوية الميدة تنوح نقانا يا رحيم ونقانا يلمي وكوني برسرانية ها وركاك اللقوية بدل وادي ما كورن الله يهديك هو أظن محمد نقطين نقص يا مسحوية وحمل أيوة نهلنا عنها الميدة ترى قلبي أظن استو وفرحية وكفرحية سلا سكر الله بهاي الدعاء لنا ودعيسان عروتنا ودعية ويلش ودعية أضياشنا ودعية أهلكنا ودعية دعاء بضية ولي بهبينك قيام الليل ودعية عروتين يضع نباتك ودعية معها اسكير عليا مركي نباتك تونا إلهي يا برينا إلهي بري أفرغتك صعبه كم تعطيك هقول بري مركز تبري وتاقنو حتى وحوين نعمك وحلقوا إلى لنا يا نعمك وحلقوا لنا يا الدعاينيس الله سبحانه وتعالى النعمويك وكوكو إلى لنا يا دعانا سوكو إلى لنا وكوكو حفظنا يا النبي يونس مركو حوت كعوني يا لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدول هاي قوة تصبيح صلاة إلهي تصبيح صلاة دون هاي وكنت الله إلى قيامة نبي يونس هل كاسو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهلكن ملائكة قريسة مركي ما الواجبية واهب لايو ملائكة واجبية يا في السراء والضراء دعيسته مركان نمعيستين أوضي في عنكو ياهي عرضكو في عنتهاي اسكن نمعيستهاي دعيسو اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين إلهي وإنت أنهي النصي إلهي وإملا أنهي سن النصي ودعيها بلا أنهي سن ودعي داتنا إلهي سبحانه وتعالى حكول إلهي كوزيا